waxaa magaalada Minnesota ee cariga Mareykanka ka qabsoomay shirweynaha wadatashiga xukuumadda iyo qurba joogta dawlad deegaanka Soomaalida. Shirweynaha wadatashiga ah ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mudane Cabdirasaaq Sayid iyo wasiirka xafiiska horumarinta iyo waraabka dawlad deegaanka Soomaalida Mudane Maxamed Faatax. waxaan isleeyahay goobtan aan joogno maanta waa ubuucdii ama guntii saldhiggii qurba joogta deegaanka. waxaan rabaa salaan diiran halka uga soo jeediyo dhammaanba xubnaha deegaanka u dhashay qurba joogta ee halkan ku sugan anoon magacyada iyo taytallada kala qaadayn. sharaf baad mudan tihiin, salaan baad naga mudan tihiin, awoodda iyadii oo naga maqan baad tihiin, noo maqanna waa tihiin dhabtii. haddaydan dadku aydan idinkiis ogeyn gayiga Soomaaliyeed 91 wixii ka dambeeyey qurba joogta doorka ay ku leedahay cid inkiri kartaa ma jirto. xilli burbur u dhacay oo labadii dawladeed ee ugu waaweynaa ee Soomaalida ku noolaayeen burbur ka dhacay, natiijo ka dhalatay qurba joogta inta badan inay u soo yaacaan dadkeen u soo haajiraan wadamo ay nabadgelyo ku helayaan, deedna kuway ka soo tageen ay caawiyaan oo soo saaraan jiilal badan oo waxbartay. sababad u ahayd baan aaminsanahay. marka mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa. waxaa la yidhi caqilkii dadka hadlayay ka mid ah wuxuu yidhi qoladii hore ha cuskanina, had iyo jeer waxyaalihii hore waxaad hadda qabanayseen un ka hadla. laakiin waxaan rabaa inaad ogaataan si la mid ah bulsho kastoo adduunka ka jirto, shacabka deegaanku wuxuu leeyahay taariikh hore oo aad u khadhaadh. kuma eka maalmo kooban, kuma eka sanado kooban, aad bay u dheertay. intii gumaystayaasha ay bilowdeen ka soo bilow taariikh khadhaadh buu lahaa deegaankeen soo maray. shacabku taariikhda ma ilaawey, ama shalay ha ahaato ama 100 sano xilli salaasi iyo mililig xilligooda ha noqotee taariikhan soo maray wey, wayna qoran tahay. dhibkay soo mareen waa qoran yahay. mar kastoo la wada hadlayana waan isxasuusinaynaa dhibaatadan soo maran, waa la garan karayaa. waxaan leenahoo kale si la mida bulshooyinka xilli aan ku jirno oo dhinacna boogihii inaan bogsiinno aan ku talagelayn oon dhayno, dhinacna inaan asaaska u dhigno mustaqbal aan higsanayno ayaan ku jirnaa iyadana oon leenahay. bulshooyinkuna taasay leeyihin dabcan, oo dhammaan adduunka waa wax ka jira wey. waxaan leenahoo kale oo saddexaad yoolal aan higsanayno mustaqbalkanagu, jiilashannada soo socota waxaan rabnay inaan u dejinaa jiro, nolol aan la higsanaynaa jirto, deegaankanaga heer aan rabnay inuu gaadhaa jiro. xaaladdaa noocaa xusid badan in lagu istaago ayay keensanaysaa. cid gaaran oo ma aha, laakiin waa taariikh dadkanaga u soo maray oo inaan xusno u baahan. waxaad ogsoon tihiin dalkoo dhan 4 sano ka hor isbeddel baa ka dhacay. isbeddelkaa ka hor taariikhaha khadhaadh ee la soo marayey waan 1 2 3 waa la dhihi karaa, laakiin way adag tahay in la soo koobaa. waa midaan wada xambaarsannahay dhammaanteen. isbeddelkaas waxaan rabaa inaan tilmaamo meelaha barhkood iyo waxyaalaha ilaa iyo hadda noo qabsoomay. idinkuna su-aalihiinna waxa ka muuqan doono waxaad isleedihiin wuu ka dhiman yahay, ad leedihiin la buuxiyo. mararka qaar dadkii hadlaya dardaarankooda wuu ka muuqday waxyaalahay rabaan inay lagu daro oo lagu xoojiyo. waxaad ogsoon tihiin dalkoo dhan 4 sano ka hor isbeddel baa ka dhacay. isbeddelkaa ka hor taariikhaha khadhaadh ee la soo marayey waan 1 2 3 waa la dhihi karaa, laakiin way adag tahay in la soo koobaa. waa midaan wada xambaarsannahay dhammaanteen. isbeddelkaas waxaan rabaa inaan tilmaamo meelaha barhkood iyo waxyaalaha ilaa iyo hadda noo qabsoomay. 4 sano ka hor August 26 waa markii xukunka la fadhiisiiyey, maamulka la dhisay, kaabineega la dhisay. waxa ugu muhiimsanaa inuu nimid hannaan dawladeedoo aad u burbursan buu ahaa. in la dhisa nidaamkii dawladeed, hay-adihii adeega bixinta in dib loo soo celiyo, dadkii ku habboonaa in lagu magacaabo, dawladdii in dib loo dhiso, wixiina horyaalla ugu muhiimsanaa buu ah. deegaan laga bilaabo ilaa degmo way baaba'sanayeen. dib u dhisid baan samayn. waxaan isnidhi
maamulka la dhisaya dad ku habboonaan raadinno 4 sano gudahoodii kolbaba dib u bedel dib u habayn hebel meesha ka bedelo hebel meesha gee hebel soo galo hebel ka saar sidaan isleenahay meelahay waxbay u baahan yihiin improvement in la sameeyo mar kastaba ama dhaliisha soo baxdo si loo hagaajiyo dadaal baan ku bixinayn waxaa sidoo kalena soo maray marxalad muhiima oo aan dul istaagnay inaan hay-addii sharci dejinta ama baarlamaankii heer federaal iyo heer deegaan inaan xullo oon isku dhabar jabinay dadka aan u xulaynay inay noqdaan dadkii dadka ugu macquulsanaa dhaqan aqoon ahaan akhlaaq ahaan dad macquul noqon karayo matali kara bulshadii ma dhihi kara 100% laakiin say u badan yihiin shuruudihii aan u dejinnay waxaan in yar ka bedelay dumarka matalaadiisa inaan xoojinno shahaadada inaan hoos u dhigno laga doonayo matalaada dumarka si aan xoojinno oo markii ragga laga rabo degree ugu yaraan qofka baarlamaanka soo gelinayno mararka qaar dumarku inay noqon karaan meeshii loo baahdaa diblom qofa in la soo geliya laakiin aan ku dadaarno ugu yaraan aqoon qof leh uu adeeg ku bixiyo baarlamaan markuu yahay xukuumaddu kula xisaabtamo inuu jiro ay ka shaqeeyaan baarlamaanka tan ku dadaalay taas ay qodobka labaad ee xoogga saarnay waa amniga wadogtihiin amnigu laba nooc buu waa wax ka baxsan dawladda xaggeeda oo dadka ku imaanaya ama dhacdooyin dhacayo xuduudo ka dhacaya ha noqdo ama ururo mucaarada ha noqdaan ama waxay doonaan ha noqdee amnigan xoogga saarno amniga kale bulshada u baahnay deegaanku ee ka muhiimsanaa waa ammaan ay ka helaan hay'adaha dawladda amnigeeda dadka nagu dhibaatadii haysatay wax ugu muhiimsanayd hay'adaha amniga dawladda inay dadka ilaaliyaan loogu talagalay iyaga laftooda dadka dhibaateynay in ka badan cid kastoo cadow ah dhibaatada u geysanaysa markaan imaanaynay hay'adaha amniga laftooda waxay ahaayeen instrument dadka lagu ciqaabay taa inay meesha ka baxdo hay'adaha amnigu dambiilaha inay raadsadaan laakiin hay'adaha amnigu qofka muwaadinka ee sharafta leh amnigiisa oo kaliya inay sugaan inaan samayn runtii waxaan u mahadcelinayaa jaaliyaddan ku dhaqan deegaanka ee halkan ku dhaqan qaybaheeda kala duwan doorkii ay ka soo qaadatay isbeddelkii ee nabadda inoo horseeday iloobi mayna aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa kacaanadii kala duwanaa ee faraha badnaa ee isbeddelka Itoobiya la jaanqaaday ee la hirgalay ee la falgalay waan u mahadcelinaynaa nin walba doorkii ku lahaa iyo miqaamkii ku lahaa ma iloobayno taariikhdana way qortay wayna sii qor doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa insha Allah inaysan garab istaagii wixii ay doonayeen inaysan iloobaynin annaga laftarkaanagu haddii aanu tubtii saxdeed ka leexanno tooshkii ay qoliyuhu kala daba socdeen in annagana la daba socon doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan halkan idinka soo gudbinayaa salaan aad iyo aad u qiimo badan oo runtii in badan uu nagu soo celiyay madaxweynaha duldaanka Soomaalida uu yiri halay gaarsiiyo jaaliyadayda ku dhaqan cariga Mareykanka gaar ahaan halkan maanta shirkeena uu ka dhacayo salaantaasaan idinka wadnaa madaxweynaha duldaanka Soomaalida mudane xildhibaan madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ujeedka kulankani runtii waxa weeyaan waa iscalool booqasho weeyaan inaanu soo calool booqano oo soo aragno jaaliyaddanadii ballaanayd ee naga soo maqnayd in badan waxayna lagu canaananayay duldaanka Soomaalida xukuumaddan maanta jirta ay xooga ma saarayso qurba joogtii baylah badan baa ka jirta way ay u iman laayihiin maxay u soo booqan laayihiin wax fara badan ayaana soo gaadhayay waan idin soo booqnay waan idin la joognaa dhaga idin furan oo wali idin ugu lana way idin la joogayaan annaga oo qaadahayna dhammaan wixii si toos ah loogu dhiibo ama si dadban loogu dhiibo hadduu Ilaahay yiraahdo waa soo calool booqasho inaanu soo aragno community-ga halkan ku dhaqan habka uu yaalo iyo sida uu yaalo inaanu xog rasmi ah ka helno ayaa ugu muhiimsanaa isbeddelkan maanta inoo yaala hadda aynu ku naaloonayna aynu ku wada fadhino waxa qiimeyn kara idinka halka fadhiya kulankeena aad ku qiimeyn karaysaan sida uu yahay ummaddu haddii ay nabad hesho waxa intaa ka dambeeyay waa dheeraad iyo quruxsi weeyaan aragti kala duwanaanshuhu waa shay caadi ah ilaahayna quraankiisa weynaagu sheego walaa yazaaluna mukhtalifiina baahid in aad ummaddu kala aragti duwanaato oo dadku kala aragti duwanaado wax ceeba ma ay laha kuwii ugu fadli badnaa ummaddan rasuulkooda dabood calayhi salaatu wasalaam oo Abu Bakar iyo Umar haaba arrimaha qaarkood isku qaban jiray
laakiin maynan ku kala tegi jirin oo maysan noqon jirin aragti ay labadoodu ku kala coloobahayaan ama ku kala fogaanayaan maysan noqon jirin sidaa daraaddeed in la kala aragti duwanaadaayey wax dhib ah ma ay laha ee waxaa dhib aha in aragti duwanaanshihii si xun loo qaato oo haddii aad aniga ila mid noqon weyda waad khaldan tahay ama waan kala tegahaynaa ama adu hadda aan taada qaadan waayo waan kala tegaynaa taasaan sax ahayn inta aynu isku waafaqsannahay aynu ka midaysannahay baa ka badan inta aynu ku kala duwannahay aynu isku diidannahay waxa inaga dhexeeya ibni aadanka wixii isku qasbi lahaa oo dhan hooyo iyo ilmaheedii wixii ka dhexeeyey ee isku qasbahayey ayaa inaga dhexeeya innagana inta halkaa fadhiday hal guri bay ka wada yimaadeen waa dad isu wada xanuunsanayo midab dhib hadduu gaadho ka kalena uu gaadhahayo sidaa daraaddeed waxaan ku qiimayn karahaynaa isbeddelkii dhabtahaa ee yimid hoolkan maanta aynu fadhinaynu ku qiimayn karahaynaa dhammaan dhinacyadii kala duwanaa iyagoo aragtidoodii nin walba sidiisa ugu aaminsan yahay yaa waxaynu isugu nimid haddana halkaa hool baynu wada dhex fadhinaa kulligeen oo ahaa inaynu iskagana cudurdaarro waxaynu ku kala aragti duwannahay wixii aynu isla qaadannay aynu ka midaysannahaynayna inaynu isku bogaadinayno hore sii wada wadno waxaan dhihi karayaa waa kulmiye weeyaan kulankani uu kulmiyey dadka o dhan buu kulmiyey gobolladii o dhan buu kulmiyey aragtiyadii oo dhan buu kulmiyey qaybihii kala duwanaa ee ummadda ee ku sugnayd gobolka Minnesota oo dhan baa ayuu meeshan ku kulmiyey ayaan dhihi karahaynaa anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda waxaan rabaa halkan khaasatan ku hadlaya magaca ugaasada salaadiinta waxgaradka dhalinyarta haweenka quruxda badan gadaal fadhiya dhammaantiin waxaan halkan rabaa inaan ku soo dhaweyno inagoo sharaf iyo cusi ay naga mudan yihiin wasiiradeenna wasiir maxamed faatax iyo wasiir cabdirasaaq sayid runtii dowladnimada inaynu wax ka barano ayaa fiican intan dambe berigii hore waxay aan jirtay jaaliyaddu inay si kala duwan wax u soo dhaweyso laakiin maanta waxaan jeclaan lahaa in jaaliyaddu ay la mid noqoto sida ummadaha kale oo mar kastaba hadday fikir ahaan iyo aragti ahaan kaga duwan tahay dowladda inay mar kasta soo dhaweeyaan mas-uuliyiintooda afkaarna la iswadarsado deegaankana la iska waraysto ayaa fiican mar kastaba marka anoo hadalka sii badinayn una istaagay inaan soo dhaweeyo keliyaata wasiirada iyo waftiga inoo yimid runtii wasiir labadiinaba halkan waxaa idin fadhiya jaaliyad qurux badan jecel deegaankooda dadkooda jecel soo dhaweynta aad mataqaanaa muxuu ahaa ugu fiican waxaan leenahay waa deegaankiinii labaad ku soo dhawaada leenahay insha allah hadduu leeyahay warbixin muhiima oo fiican ayaan kala qaadan doonaa idinkuna sidoo kale idigoo ku daraya respect iyo tixgelin iyo wadaniyad jacayl si wanaagsan u kala warqaata wasiirada insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu